gobollada waqooyi Soomaaliland ee shirkan caawa isugu timid waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxa kaloon salaamayaa bahda saxaafadda iyo madax dhaqameedka iyo odayaasheenna 135 ka mid ah ama oday dhaqameedka kale ee 23 oday oo leenahay waxaan codkayga marka ugu horeysa ku biirinayaa xafladan aynu caawa isugu nimid ee ku saabsan raaligelinta iyo xaalmarinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo run ahaantii maamuus iyo karaamo inaga mudan iyo beesha uu ka soo jeedo ee habargidir oo taariikh dheer aanu wadaagno aynu leenahay dhinacyo kala duwan leh ilaa General Muuse Igire iyo ka hor iyo taariikhihii dambe ee aynu sida gaarka ah u wadaagaynay oo aynu wada lahayn anigu shakhsiyan waxaan ka soo jeedaa saldanad fac weyn oo taariikh dheer ummadda Soomaalida ku leh oo la wada yaqaan oo dhaqan guun ah oo boqolaal sanadood soo jiray leh wixii maanta ka dhacay guriga Cabdi Xaashi dhaqan islaam ma ahayn dhaqan Soomaaliyeed ma ahayn dhaqan ogaadeen ma ahayn dhaqan madax dhaqameed iyo oday iyo suldaan midnaba ma ahayn ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo beesha habargidirba waxaan codkayga ku biirinayaa oo aan leeyahay xaal qaad annaga dhaqanka aad u naqaan waxaan leenahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad ra'iisul wasaare xaal qaado ra'iisul wasaare raalli ahow beeshaasay xaal qaata raalli ahaada diyaar baanu u nahay gobol iyo madal weyn inaanu xaalka ku bixino waxa soo raaca oo doonaya inaan ku daro geedi socodka doorashooyinka nin aqoonyahan oo luqadda af Ingiriisiga ku hadlayay ayaa wuxuu ka hadlay wax la yiraahdo gerrymandering oo waxay ka hadashay macnaheedu tahay doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo sida loo maamulo ama looga maamulay dalka Mareykanka waxaan u fahmin doorashada hadda aynu ka shaqaynaynaa ama ku jirnaa inay tahay doorasho dadban oo doorkoodu ay ka timaado odayaasha dhaqanka iyo beesha kursiga iska leh gudiyada doorashooyinka ee heer dawlad goboleed federaal iyo doorka xafiiska ra'iisul wasaaruhu ku leeyahay oo ah logistics taageero xagga maaliyadda iyo adeegyada kale ay u baahdaan hadba iyo hogaaminta guud ee ra'iisul wasaaraha doorashooyinka uu ku leeyahay khaasatan Soomaaliland uu ku leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaruhu waa hay'ad dastuuri ah oo qaran waa wajigii qaranka waa muraayadii fulinta ee dalka laga arkayay ma aha xafiis foojari laga sameeyo mana aha xafiis Cabdilla Shideeye laga sameeyo ama laga shaqeeyo waxyaabahaas oo dhan xaal ayaynu ka bixinaynaa arrimaha doorashooyinka markaa aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaashi waa ogeydeen taariikhdii sanadka iyo dheeraadka muranka iyo loolanka iyo kala duwanaanshaha ku dhisnay iyo aakhirkii halkii lagu soo gunaanaday oo ahayd heshiiskii madasha ee 27 May in kuraasta aqalka sare ee lagu tartamayo aniga iyo gudoomiyuhu aanu soo xulno si siman si loo abuuro 12 xildhibaan sidaas la midana aanu buuxino meelihii ay ka bannaan yihiin 46 madax dhaqameed iyo bulshada rayidka ah ee noqon lahaa golihii dooranayay senatarada aqalka sare hawshaas waanu gudanay waanu ka soo shaqaynay ra'iisul wasaaruhuna waa nagu taageeray habraacyadii 27 May iyo kuwii ka dambeeyay oo ay kiimaka ugu dambeeyay bishii dhaweyd dhacay midnaba meel ay kaga xusantay ma jirto door aanu aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaashi ku leenahay sida uu ridwaan yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore gudiyada inoo dhisan ee heer federaal heer dawlad goboleed iyo khilaafaadka iyo xafiiska ra'iisul wasaaruhu wixii taageero ah siinaya ayaa ku shaqo leh doorashada in la qabto iyo odayaasha 23 ka ah ee bulshada dhaqanka ee hogaamiyaasha dhaqanka iyo madax dhaqameedka ee bulshada rayidka ku soo daraysa gudub ee kala duwan inay doorashadii hogaamiyaan laakiin ra'iisul wasaaruhu markii habraacan soo baxay uu noo yeeray wuxuu nimo yahay iga xigsada iga caawiya maadaama deegaanka idinku ka soo jeedaan hawshaas waa ka shaqeeynay waxaan si halka arkaya tacaddi iyo deelqaaf iyo xadgudub lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha
markii uu sameeyay wax la yiraahdo delegation of authority shaqadii bal qaybtiina ka qaata in lagu gafo oo lagu kibro oo lagu tacadiya wax meesha la eg maaha xaal baanan ka bixinaynaa waxaan leenahay ra'iisul wasaare oo ka raali ah cabashooyinku way dhici karaan oo waxaan nin weyn oo odaya oo leh beeshayda aniga yaanba la iigu imana hal ii gaar yeelo faraha hal iiga qaado waxyaabii cabdullaahi jacali hadda ka cabanayay bay kamid ahay iyadoo taa la leeyahay in haddana lagu eedeeyo oo la yiraahdo waadna hagardaamaynaysaa ama farigelin baad nagu haysaa ama waxbaad naga boobaysaa meesha walaalayaal oo maleeka waa tii xildhibaan intuu soo baxay uu xagaa ka hadlayay oo raba xildhibaan kale oo ka dambeeya inuu dulmiyo ama ku tacadiyo ayaa meesha taal khaladku meeshu ka jira waa la ogyahay cidda tacadiyaysa ama khaladka wadana runtii Soomaaliya waa wada muuqata imaka waxa inoo haray 40 cisho oo la yiri doorashooyinku waa inay ka dhamaadaan 40kii cisho ku dhawaad 10 ku dhadhawaad tigeen wax bil aan ka badnayn ayaa haray doorashooyinkii dalkan in la badbaadiyo oo la caymiyo oo lagu qabto qof kastoo isku daya ama cid kastoo isku daya doorashooyinkaasi inaanay dhicin oo hagardaameysa waxa loo aqoonsanayaa inay yihiin qaswadayaal loomana dul qaadan doono doorashaduna way soconaysaa doorashaha dib u dhacmaya waxa kale oo raali gelinaya guddiga doorashooyinka ee siid oo shaqo wanaagsan haysa iyo hogaankooda oo awoodii iyo shaqadii iyaga loo gaar yeelay ogolaadayba inay dhageystaan odayaasha la fadhiistaan oo yiraahdaan maxaad soo jeedinaysaan halkeen wax ka bedelnaa halkeen wax ka qabanaa guddigaana waxaan leenahay shaqadiina wata fiid hadday tahay shaqada waajibkeeda idinka saaran sharciga wata guddida heer federaal ee doorashada guddida heer deegaan ee siid waxaan leenahay shaqadiina wata khilaafaadkana sidooda oo kale waa inay shaqadooda u wataan oo ay doorashadu socotaa doorasho dib loo dhigayaa ma jirto xafladda codkayga waxaan ku biiranayaa kuna soo gabagabeynaya ra'iisul wasaaraha waa raali gelinaynaa beesha uu ka soo jeedana waa raali gelinaynaa doorashaduna waxaynu leenahay ha socotee dib yaana u dhicin soo maaha dalkani doorashay u taagan yihiin waa doorasho doon doorasho diid maaha la ismana dulmaayo la iskumana tacadiyaayo la iskumana xadgudbaayo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasaan ku soo gabagabeynaya واي واي نوح ريو ناسيتي